الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وأصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. waxaan ku soo dhex jirnay qiyaamaha iyo arrimaha ilaah subxaanahu wa tacaala oo dhex yeelay hawlka iyo mashaakilka iyo dhibaatada faraha badan ee qiyaamaha uu leeyahay. waxaa noogu soo dambaysay nimankii kaafiriinta ahaa oo ilaahay agtiisa ku doodaya subxaanahu wa tacaala, cudurdaarna ka dhigtay inuu shaydaanku ayagu markaa dhumiyey. shaydaankii ayaan soo ogaanay inuu yidhi: rabbanaa maa adqaytuhu, ilaahayow anigu ma dhuminin, walaakin kaana fii dalaalin baciid, laakiin asagaa baadi fog oo dheer ku jiray. insaanku wuxuu dhahayay ilaahayow kana i dhumiyey oo iga leexiyey jidkii toosnaa ee sawaabta ahaa. shaydaankuna wuxuu lahaa ilaahu anigu ma dhuminin. ilaah wuxuu soo yidhi subxaanahu wa tacaala: laa takhtasimuu ladaya, agtayda ha ku doodina, waqad qadamtu ilaykum bilwaciid. waciid iyo hanjabaad iyo goodi ayaan horay idinkugu soo hormariyey. qowl anigu agtayda ahaadayna la bedeli maayo. wamaa ana bidallaamin lilcabiid, aniguna maihi buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala addoommada mid dulmiya. maalinta ilaah sidaa uu leeyahay waa maalinta jahannama lala hadlo oo la leeyahay: hal imtala'ati, jahannamoy ma buuxsantay? ayaduna ay leedahay: hal min masiid, wax ziyaado ah ma jiraa oo la igu shubo? ayay leedahay jahannamo. haddaba walaalayaal, jahannamada sidaa u hadlaysa ayaana sugaysa. jahannamo waa meel aad iyo aad u dhibaato badan oo ilaah uu ugu talagalay cusaada asaga ku caasisa in markaa lagu ciqaabo ama lagu abaalmariyo. jahannamada marka loo diyaariyo oo ilaah subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa uu amro inay dadkaa kaxeeyaan oo ay qumiyaan ay geeyaan dhanka jahannamada, ilaah wuxuu leeyahay: uxshuru aladiina dalamuu waaswaajuhum wamaa kaanuu yacbuduuna min duuni illah. waxaad isku soo aruurisaan in allaala intii daalimiin noqotay oo naftoodii dulmisay, awaamirta ilaahay ka tillaabsatay, xuduudda ilaahna aan ilaalinin. uxshiru aladiina dalamuu waaswaajahum, ayaga iyo zawjooyinkooda soo kulmiya iyo wax allaala waxay alla sukadiisa caabudi jireen, fahduuhum ilaa sawaa'i aljaxiim, ilaa siraati aljaxiim. waxaad ku toosisaan ood ku hanuunisaan waddada jaxiimo gaarsiinaysaa. markii sidaa loo soo aruuriyo oo laysu keeno ayagoo isku xirxiran, sida ilaahay uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala, daalimiinta ayaad arkaysaa maalintaa muqaraniina fi lasfaad, ayagoo xargo waaweyn ku xirxiran buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. dandarada iyo mashaakilkii rafaadka ka muuqanaya aan la dayi karin, aad iyo aad ay u dhibaataysan yihiin. nasri iyo gargaar ayay u baahnaayeen, ilaahina waa u diiday subxaanahu wa tacaala in loo gargaaro. sida u soo aruuriya buu dhahay ee jidka jaxiimo gaarsiinayo ku toosiyo ku hanuuniya. intaa ka bacdi istaajiya buu yidhi ilaah, su-aal ayaa la weydiinaa. su-aasha cajiibka badan ee la weydiinayaa waxay tahay: maa lakum laa tanaasaruun, maxaa dhacay ood maanta isugu gargaari weyseen buu leeyahay ilaah subxaanahu wa tacaala. markii xaaladoodu ay sidaa noqoto ayaa waxaa loo dhowaynayaa ama loo kaxaynaa dhanka jahannamo. jahannamo mar allaala markay aragta buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala min makaanin baciid, meel dheer ay ka aragta, samicuu lahaa taqayudan wa zafiir, waxaa laga maqlaa inay codaynayso cod aad iyo aad u xun iyo cod dameereed oo kale ah inay markaas soo bixinayso. waayo jahannamo maalinta aad iyo aad ay ugu ciil qabtaa.
إلى سبحانه وتعالى بعدما دينكيسي أي كتغين أو دباتها أي ليمدين أيا وحي سيغي سابو داي إله إني قوضبا تكاد تميز من الغيظ إلى يقبت قال درتيد أي أدوانيسا إني قوضبو يري إله كلما ألقي فيها فوج مركزتو أو جميعا لقول ذنا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير وحويدينا يسؤال يا ملائكتك هيالك وضع مركز إليهن ألم يأتكم نذير إذن ما إيمان ميا قالوا بلى قد جاءنا نذير هابي إليهن مدق ونويمت فكذبنا وان بيننا وقلنا ما نزل الله من شيء waxaan niri ilaahay wax uu soo dejiyay ma jiro idinkuna ma tihiin ilaa kuwa baadi ku jira maahane mar allaala markay sidaa yiraahdeen hadalkoodu say u sii wataan waxay leeyihiin law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashaabi as-sa'ir maanta haddaan wax maqli lahayn ama aan wax maqli lahayn oon ku aqli qaadan lahayn wacdigii iyo diinkii amarkii ilaah raacitaankiisa aan ku socon lahayn maanta saciira asxaabteeda ma noqon lahayn ساسيدها ينبو ير إلى سبحانه وتعالى فاعترفوا بذنبهم وحي قرتين ذنوبتو ذي إيدن بيالكو ذي لكن قرشة وحنفعيسا معهن فسحقا لأصحاب السعير قال أصحاب السعير أي هلاك يطيرين أسقنا طيبوا إلى سبحانه وتعالى هذا بجهنم ذا أي لو هذا يددك ظالمين تأهو رب الدين كيسي كدل سبحانه وتعالى إلى مركوك هذا يمحيري mar allaala marka qiyaamaha sida loo tago oo nimanka dhaalimiinta la isu keeno oo la kala miisaamo oo intii miisaankoodii cuslaatay wanaag la siiyo intii miisaankoodii khafiif noqotayna lagu abaalmariyo dulligii cadaabka kan ugu xun fi jahannama khalidun talfahu wujuhahum an-nar naftna wajiyalkooda waxa cunaysa buu dhaay ila subhanahu wa ta'ala naarta wahum fiha kalihun meesha ay ku dandaran yihiin oo rafaad iyo dhibaato uga muuqata oo oon iyo dhib ay ugu jiraan wahum fiha kalihun ila Allah Allah subhanahu wa ta'ala oo waxa loo leeyahay alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun ayadahigi ma ladinku akhrinino oo idinku ma noqonin miya kuwa beeniya qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dhalin إلهي وحنا جاءت كذا مضح أذيجنا نصيب حمدنا دول درسجاني غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قام دمي أيان نقني أيليهن إن ربنا أخرجنا إلهي عذابك نجبحي فإن عدنا فإنا ظالمون هذا مركل أنقنا أنا كظالمين إلهي حقوق جواب يا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وحقوق شان عذابك ماشى أوحن هنا إلى حضلنا أبو إله إليه سبحانه وتعالى ويا آياتها إله أيا الذين كو أخرين جري حق يدينك الذين شيء جري إلى رعضانا الذين كو وعي جري وادي دين سذا أي إله إليه سبحانه وتعالى إلهي آياتك لو حكو جري إن جهنم كانت مرصادا عذابك جهنم من أمريكا إيه الدفيس إيه سجد الصاحبة أيو أهاضي للطاغين مآبا ذاتك طاغين دي حد قذبك بضان أي أنقنا يبوضي إلى سبحانه وتعالى جهنم ويميشي الله بنايان لابثين فيها أحقابا وإن كنا جانا ينقذوه ذا أحقاب إيا زمن فربضا معناها أبدا أي كنا جانا ينعذابك جهنم لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شراب ما كدد من ينبضي إلى سبحانه وتعالى جهنم قذه ذا وحقبوا إيا شراب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق حميم بيكل إيا غساق ودعا ناريت أهما هني وحكا لأي كدد